dhacdooyin fara badan aan ku dhex arkay intii aan dowladda Soomaaliya ma garanaysaa mas-uuliyiinteeda kamid ahaa gaar ahaan ciidamada xaggooda wiil dhalinyaro ah oo meelan aad u mari jiray gaar ahaan intii Muqdisho tagta taqaani birta madaxtooyada habeen dhexdaas waan ag mari jiray marka waan inta badan waa la sheekaystaa askarta gaari anaa watay waa aad u salaami jiray aad u yaqeen waxaan habeenkii waxaan halkaas soo xoogaa yara oo muuqaalkiisu una fiicneen وجروا كانوا يسووا درجة قاعدة قرته أمامكم التجويد وأسوأ مش محلول عليه التجويد حاجات لما له جو ومره وميمسم لو جبها مين يروح تشكورة تجدونه أي خير واحد وأنا يري وحنقول باليوير ويبدي ويبدي يورنا نقول معاه كايو هذا الكيس ما في مدار عضيني وهاي نوع كليا ما هذا العبارة ومسنا ويسوع دوادي وحنقولي ولا نسيب بجرا من حكى هذا معاه أصلا إذا هذا اللي نقولي مرة كاروا حماية أنا أقول إذا ده حسوس سوي إنسان مرزق waxaan weydiiyey maxaa ku dhacay maxaa kaasi ah wuxuu ugu dhacay gurigeyga korontadii 3 cisho ka hor laga goostay biyihina maanta laga goostay carruurteydina caawa raashin ma يعني وادريمي كتاي يعني ظروف سدا يعني دقات انت سدا انه قف بني ادم او يرك هدنا ان كشقين غورغيس ودباتده oo intaas u maray aynan ahayn dantiisa gaarka ah waxa uu daarantay dhalinyarada Soomaaliyeed inay kulubtooda aad marsh iska daa markaan dadka ka sheekeynaya walaal sarafteeda noo jeedo markaan soo xasuusto kaliya dhacdaas ugu dhacay yani oo aan kala kulmay askarigaas adiga inta kari karo habeenkii in la inta kari karo wala gurmaday askarigi habeenkii dabcan as mas'uulaan waajibay waahid inkastoo aan wax weyn u kari karo dacwadaas waxaan ku sheegay waxay aad kaliya inaan idin xasuusiyo in dhalinyaro Soomaaliyeed oo runtii commitment fara badan ay ku jirto ay jiraan dalka Soomaaliyeed